Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wanaagsan khiyaartana daawanaysa ay idilkiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid a barnaamijyada aan idinkugu talagalnay maanta oo ah Talaado taariikhduna ay tahay 30 bisha Janaayo sanadka 2024. barnaamijkan waa kii ugu horeeyay waa barnaamijyada aan idinkugu talagalay maanta oo Talaado ah. dhowr qodob oo muhiim ah ayaynu barnaamijka ku faaqidi doonaa. haddaba markii ugu horeysay dowladda Ingiriiska ayaa waxay leedahay waxaanu imika ka fakaraynaa oo aan daraaseynaa sidii aan u aqoonsan lahayn dowladda Falastiin. Israa'iil waxay doontaa samayso. haddaba sheekadaas waxay noqotay mid gariirisay adduunka. Ingiriiska markii hore 1948 waa midka sameeyay Yahuudda dejiyay halkaas dhulkaas ku bilaabay. haddana isaga ayaa wuxuu leeyahay waxaan daraaseynaa Israa'iil wax kasta ha samaysee inaynu aqoonsano dowladda Falastiin. haddaba sheeko la yaab leh oo arrinta ku saabsan iyo reer galbeedkii oo imika fahmay waxa meesha ka jira inay dhibaato kala keeni karaan haddii aan hadda laga hortagin oo Falastiin dowladeeda aan la siinin. waa guushii ugu horeysay sida la leeyahay imika soo carfaysa ee shacabka Falastiin u soo hoyanaysa. haddaba tafaasiil arrinta ku saabsan waan idin hayaa. waxa soo kale aan idin hayaa taliyaha ciidamada Mareykanka ee la yiraahdo raxanta shanaad ee ku sugan badda cas oo waraysi bixiyay ayaa ka hadlay khatarta ay leeyihiin Xuutiyiinta iyo sida ay halis ugu yihiin oo ay mar walba ku baabi'in karaan maraakiibta Mareykanka ee halka ku sugan. haddaba sidee wuxuu jiraan taliyuhu muxuu sheegay war baan idinkaga hayaa. wararkii ugu dambeeyay Gaza ayaan idin hayaa. Israa'iil oo ka hadashay tirada askarta dhaawaca 24 saac ee la soo dhaafay inta ay gaareen iyo waliba sheekooyinka ku saabsan xabad joojintii la hadalhayay iyo isdhaafsigii maxaabiista halkee wax marayaan. hogaamiyaha Hamas Ismaaciil Haniya oo isaguna ka hadlay sheekadan. haddaba wararkan iyo wixii kale soo kordha ayaan barnaamijkeedii kula wadaagi doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. kulanti wanaagsan khiyaaray meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idinkugu talagalay maanta oo Talaado ah. haddaba barnaamijkeena waxaan ku bilaabayaa taliyaha ciidanka raxanta maraakiibta Mareykanka ee ku sugan gobolka bariga dhexe gaar ahaan badda cas ayaa waraysi uu bixiyay isagoo la hadlayay qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka. wuxuu sheegay awoodda ay Xuutigu leeyihiin. haddaba arrintan ayaa waxa ay mar kale samaynaysaa in weli awood xoog leh ay leeyihiin Xuutiyiinta inkastoo la duqeeyay dhowr jeer oo Mareykan iyo Ingiriiska ay duqeeyeen. haddaba taliyahan wixii uu sheegay ayaan barnaamijkan ku bilaabayaa. waxaa Al Jazeera ay leedahay taliyaha militariga Mareykanka ayaa wuxuu leeyahay sawaariiqda iyo droonka Xuutiyiinta ay leeyihiin suuragal ayay u tahay inay bartilmaameedka ay doonayaan ay ku duqeeyaan 75 second. fiiri 75 second daqiiqad ma ah. ninka hadlaa waa taliyaha ciidanka Usturul Khamisa la yiraahdaa. waxaa la yiraahdaa raxanta shanaad ee ciidamada ayaa hadlaya. wuxuu leeyahay hadday u baahdaan hadaf ama meel bartilmaameeda inay weeraraan hubka ay haystaan khatarta uu leeyahay Xuutiga 75 ilbiriqsi u fiirsada daqiiqad ma dhama ayay ku burburin karaan. marka anagu khataraynu u yihiin uu yiri. waxaan halis ugu jirnaa maraakiibteena badda daadsan inay markiiba dejiyaan. iyaga na soo aadin maahane hadday na soo aadaan waana baabi'inayaan uu leeyahay.
haddaba marka ninkan taliyaha marka aljazeera waxay leedahay taliyaha xaynta maraakiibta ee shanaad ee maraykanka Charles Bradford Cover ninka la yiraahdo ayaa wuxuu sheegay shalay oo isniin ahayd gelinkii dambe in gantaalaha iyo daroonka ay xuutiyiintu leeyihiin ay suuragal u tahay inay ku burburin karaan hadafka ama ujeedada ay u socdaan badda cas 75 ilbiriqsi ayay ku samayn karaan. annaga maraykan ahaan ciidanka halkaa naga jooga iyo maraakiibta inaynu ogaano gantaal in la soo riday inaynu isdiyaarino 9 ilaa 15 ilbiriqsi ayay nagu qaadanaysaa. marka wuxuu leeyahay nimankan xuutiyiinta ah waa niman halis badan oo khatar ay ku jiraan maaragtay ciidamada maraykanka halkaa jooga. wuxuu waraysigan siiyey kanaalka la yiraahdo CBS ee waddanka maraykanka ayuu taliyuhu waraysigaa siiyey wuxuuna kaga hadlay dhibaatada haysata maraakiibta ganacsiga iyo kuwa xataa ciidamada badda maraykanka ay leeyihiin oo maalmihii lasoo dhaafay sawaariikhda plastiga ah ee khatarta ay xuutiyiinta lagu dhuftay. haddaba marka taliyahan wuxuu leeyahay Iiraan ayaa waxaa hawshan ku lug leh sababtoo ah waxay u sahashaa inay helaan macluumaadka maraakiibta noocyada ay kala yihiin midka maraykanka leh midka Israa'iil leh waxa u sahlaya waxa waayuu leeyahay Iiraan ayaana ka dambaysa hawshan. waaya marka maxaa ka baranaynaa maraykankii badda cas joogay in uu ka baqayo xuutiga. wuxuu leeyahay gantaalaha naloo isticmaalay 75 ilbiriqsi ayay markabka ku imaanayaan. annaguna inaynu ogaano ayaa 9 ilaa 15 ilbiriqsi qaadanaysa kadib loo diyaar garoobo la cabeeyo la rido meeqay qaadanaysaa. marka nimankan wuxuu leeyahay waa halistooda way badan tahay wuxuuna ku eedeynaa wuxuu leeyahay nimankan waxa waaye Iiraaniyiin Iiraaniyiinta ayaa hawshan wax ka og. marka gantaalahaas inay halis yihiin maraakiibta maraykanka xataa kuwa ciidamada lagu weeraray toddobaadkii la soo dhaafay waa la socotiin. marka ninkan taliyaha af labadii buu qayliyay hebel ma maqli jirteen macalinka weyn af labadii qayliyay xuutiga ma sahlaneen waliba ninka hadlaa wuxuu yahay ciidanka raxanta maraakiibta ee fadhida badda cas ninka haysta waaye ninka la wareysana waa ninka gacanta u taagay xuutiga uu yiri nimankan balaaya ay qabaan waa niman inkaaran u dhaay nimankan ma loo dhawaa karo. waayahay qodobkaas halkaas ay kaga gudbaynaa. waxaan mar kale aan isla ogaanaynaa wixii ka soo kordhay shirkii axadii Paris ka dhacay ayaa weli la hadal hayaa. qatar xataa ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda ninka isku ah waa uu ka hadlay wuxuu yiri rajo fiican muuqata laakiin annaga haddaan qatar nahay dhinacna ma qasbi karno u fiirsada hadalkiisa laakiin annagu dhexdhexaadaan nahay dhinac wax ma ku darqin karno. macnaha haddii ayna yiraahdaan macalinka weyn iyo Israa'iil war Xamaas ka dhaadhiciyo Xamaas ma ka dhaadhicin karno annaga laakiin tala soo jeedinaa leenahay dhexdhexaadin waxaan u aragnaa inay hawl wanaagsan tahay wixii la iskula soo qaaday axadii meesha madaxa sirdoonka maraykanka CIA-da iyo kii maaragtay muusaadka Israa'iil iyo kii Masar iyo nimankan qadariyiinta wax fiican ka soo baxo laakiin annagu dowrkeenu waa dhexdhexaad. waaya wali marka waxaa ka sii hadlaya sheekadan warbaahintii Israa'iil waxay leeyihiin tallaabadaasu way fiican tahay. haddaba marka waxaynu ku hormaraynaa journaalka la yiraahdo Haaretz ee ka soo baxa Israa'iil ayaa wuxuu wax ka qoray heshiiskan la filayo sida la leeyahay in la gaaro dhawaan. journaalka Haaretz wuxuu leeyahay hindise ayaa la keenay oo ku saabsan in la dhexdhexaadiyo mabda'iyan in dagaalka la joojiyo Gaza 6 toddobaad kadibna la isdhaafsado maxaabiis. marka 6 toddobaad waa meeqo 4 toddobaad waa bil 2 toddobaadna waa bil iyo bar meelahaas
nimankanna in maxaabiis ay ku sii daayaan, nimankanna dagaalka ay joojiyaan yuhuudda iyo waxa kan waa kaas. marka warkaas way socotaa sheekadan, laakiin waxaa la sugayay mas-uuliyiinta xamaas. shalay nin baan soo daayay siyaasadda arrimaha dibadda u qaabilsan inaa la socotay baan filayaa. hadda marka maanta waxaa haddana hadlay oo war laga keenay Ismaaciil Haniya, waa ninka madaxda u ah xamaas hadda, madaxa xafiiska siyaasadda ee xamaas Ismaaciil Haniya. haddaba Ismaaciil Haniya marka muxuu leeyahay? wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu ayaa waxay leedahay Haniya wuxuu sheegay xamaas in maaragtay ay la wareegtay oo ay soo gaareen hindise kulankii Paris oo maaragtay lagu daraaseeyay. macnaha waa naloo soo gudbiyuu dhahay qoraalkii, macnaha ayagu ma joogin xamaas. fiiri, xamaas ma joogto meesha lagu hadlaa, Israa'iilna way joogtaa. marka qatar, masar, Israa'iil, Maraykan ayaa waxay ku shireen Paris. sidan ma ka dhignaa marka nimankii marka qatar iyo masar ayaa marka warbixintii halkaa wixii looga hadlay ayay waxay ku sallimeen oo ay ku wareejiyeen xamaas. marka ninkii ugu sarreeyay xamaas wuxuu leeyahay wixii meesha looga hadlay, wixii meelaha socsocday ma ahane, wixii rasmiga ahaa haddaana loo dhiibay, waana loo keenay. marka haddii naloo keenay marka waa ka daraaseynaynaa, waa ka munaaqashoonaynaa, waa laga shuuraynaa, waa laga tashanaa, kadiba xamaas war rasmiga ka soo saare. laakiin midaa idiin sheegaa uu leeyahay ninkan la yidhaha Ismaaciil Haniya, wuxuu leeyahay annaga mabaadi'deenna dagaalka iyo waxa kan in la joojiyo ciidankoodana ay la baxaana mabda' noo ah. annaguna markaas kadib aan maxaabiis ka hadalno, laakiin hadda wixii meesha lagu soo shiray dibaan waa eegi doonaa. haddaana laku wareejiyey, waana laku sallimay. marka isagu wuxuu leeyahay hadalkaasuu leeyahay Ismaaciil Haniya. kolley wixii isagu markaa iyo saaxiibadii xamaas madaxdooda ay go-aan kusoo gaaraan waa arki doonaa. sheekadaas marka sii deynta iyo waxa kan iyo waxay haysataa marka meel kasta. haddana waxaa leeyahay ninka wasiirka arrimaha amniga gudaha ah ee Israa'iil bin Gvir, ninka la leeyahay wadaad yahuudeedka ah, waxa uu leeyahay haddii heshiisyadan la wadwado iyaga kuma qanacsanaa in wax heshiisa, wuxuu leeyahay waxay keenaysaa in dowladda ay burburto. iyaga marka ninka Netanyahu la yidhaha xoogay ku haystaa nimankan wadaada yahuudeedka ah oo wasiirada qaar ah. haddii ay ka baxaan dowladdiisu way dhacaysaa Netanyahu. marka waxay ugu hanjabayaan markasta waxaynaan ogeyn oo aanan ka warqabin. haddaad isku gasho annaga dowladda waa ka baxaynaa oo dhacaysaa dowladdaada. mucaaradku ka faa'iidaysanaya, doorashaa la aadayaa. ninka Netanyahu la leeyahayna xukunka wuu jecel yahay, ha jeclaadee xukunka wuxuu uga dhuumanayaa dembiyo badanaa loo haystaa oo lagu soo oogay, musuq maasuq iyo lacago inuu isdaba mariyay iyo isaga iyo familkiisi waxyaabo badan. marka xarigu qoorta maaragtay uu khatar ugu jiraa. marka isaguna xasaanadaasuu isku ilaalinaa. marka nimanka marka halkaasee marka hawshoodu maraysaa, mar walba hanjabaadaasay soo saarayaan. haddaba qodobka ugu muhiimsan ayaa barnaamijkeena marka aan kusoo gabagabaynayaa. dowladda Ingiriiska ayaa hadda waxay leedahay waxaan daraaseynaynaa inaynu aqoonsano Falastiin dowladdeeda. xalan u aragna annaga awalna Ingiriis yahuud waxa ku beeray meesha 1948 dhulka carabta dejiyey wuxuu ahaa Ingiriis. maanta marka Ingiriisa wuxuu leeyahay annaga macalinka weyn iyo xataa ma sugayno, waa aqoonsanaynaa dowladda Falastiin. daraasadaasaa socota, waa la daraaseynayaa hadda. الدولة عميقة فديدا. الدولة عميقة وحال هذا دتك مسرح سارة هراء ذي كوكو شاقي دولة كستوين دت هوسو سياسة جانجو يلي دتكي جانجوين يا وركن كان مرك. وانا للدراسين يا انا قوا اقونصانينا الانجليز هدانا فلسطين. هذا مركز شيكا عجيبة واي الجزيرة ايا قرطين مركز وحال هذا شيكادا waxay noqonaysaa mid ay aad u soo dhaweynayaan dadka Falastiiniyiinta ah. waatahay aljazeera marka waxay leedahay wasiirka arrimaha dibadda Cameroon ee waddanka Britain waxa uu sheegay inay daraaseynayaan inay ictiraafaan dowladda Falastiin
inay dowlad ahaan u aqoonsadaan. wasiirka arrimaha dibadda ee Britain David Cameron ayaa London waxa uu sheegay inay daraaseynayso inay aqoonsato dowlad Falastiin ay leedahay, waxaana uu sheegay tani inay tahay lagama maarmaan, waana naga go-an tahay sida ugu dhaqsaha badan in loo helo laba dowladood oo isbarbar yaala Falastiin iyo Israa'iil. halkana inuu arintaa ku jiro ayaanu isla garowsanay haddaan nahay Ingiriis. wasiirka arrimaha dibadda David Cameron waxa uu leeyahay isagoo waraysi siinayay hay-adda BBC da ee waddanka Britain laga leeyahay ayaa wuxuu sheegay in Ingiriisku ay iminka eegayaan iyaga iyo saaxiibadood mas'alada ku saabsan aqoonsiga dowlad Falastiin ay hesho oo waliba qaramada midoobayna la geeyo oo la aqoonsado dowlad Falastiin dowlad loo aqoonsado. wasiirka arrimaha dibadda ee Britain waxa uu leeyahay arintani marka waxay muujinaysaa in dunidu ay hadda ogaatay meeshaas in loo baahan yahay, wuxuuna ugu baaqay Israa'iil inay gargaarka degdega ah gaarsiiso meelaha loogu talagalay. waa ogna oo dhahay dowladda Israa'iil inaysan ogolayn in ay markaa la sameeyo dowlad Falastiin ay leedahay, laakiin waa inay ogaataa ayuu leeyahay David Cameron in Israa'iil ay ku fashilantay 30 sano dadkeeda inay nabadgelyo siiso. u fiirsada 30 sano inay dadkeeda nabadgelyo siiso waa ku fashilantay dha Israa'iil. annagana ma ilaalin karno waay maanta oo dhan annaga ilaalino annaga marka meelo balag difaac ma sameyn karno. waxaan ku sii kala dhimanaynaa dowladihii islaamka, waxaan ku sii kala dhimanaynaa dowladihii kale carabta kulli meel kasta markaa tagno waxaan leeyahay saan xal ma u aragteen. marka annagu ma rabno leeyahay intaa ka badan ma dul qaadan karno. Israa'iil ma xarabtaa samayso. waxaan garowsanay xalka inuu ku jiro laba dowladood oo isbarbar taala oo isbarbar dhalata oo Falastiin oo dowlada oo xora. ma sha Allah yaa heli kara ilaahay uunba siin kara dadkaas. marka Ingiriis marka waxa uu samaynayo hadda wasiirka arrimaha dibaddu ma ka dhabba ma dowlatus kale ciyaarayda oo lagu mashquulinayo carabta iyo islaamka yaa yaqaan. laakiin dadka wax u daraso waxay leeyihiin dhabta loo badinaa inay dhab tahay sababtoo waxa la ogaaday Israa'iil waxay tahay la ogaaday. Ingiriis iyo Mareykan isay meesha ugu hayeen dowladda ugu weyn bariga dhexe u lahaayeen markii nagta laga galiyay oo ayadii dhan waxaas ay ku dhaceen adduunkii oo dhan la yaabay oo ceeboobeen reer galbeedka. hadda marka waxay garowsadeen in waxa kan dowlad Falastiin leedahay la aqoonsado, laakiin Israa'iil ma ogola Falastiin inay dowlad yeelato. dhibaato kala jirtay ogaada aan idin sheego. Israa'iil iyo Falastiin haddii laba dowladood ay noqdaan sida hadda qorshuhu yahay 67 dhulkii Falastiin ay ka boobtay Israa'iil ayaa dib loogu celinayaa Falastiin. waxaa ku jira Masjidul Aqsa dhulkaas oo dhan ku jira meelahaas oo dhan Israa'iil marka inay dhiibto ma rabto meelahaas. marka dagaalkaas marka iyaga hoosaa socda meelo badan oo waxaa jira 67 la boobay oo dad Yahuuda lagu beeray oo guriga laga dhisay oo maanta dhul Yahuuda ah Yahuudu ay isa siisay. marka haddii dowlad Falastiin dhalato waxaastee waa laga raraa meesha Falastiin dowladeeda qabsanaysa. marka Yahuudu waxaas ma la tusi karo. laakiin hadda macalinka weyn laftirkiisu waa garowsada sheekada. Ingiriis waa kan hadda ma baqarsanaya wuxuu leeyahay annagu waa meeshii daraasadii ugu dambeysay ku jirnaa waa aqoonsanayna. awal yaa kaloo yiri dowlado badan oo Yuruba oo iyaguna yiri waa aqoonsanayna jire oo maartay diyaar u nahay Falastiin inay dowlad noqoto. marka adduunyadii oo dhan hadda Ilaahay baa maartay u soo jeediyay Falastiin. awal markii hore waa laga sii jeeday. hadda qolo walba waxa leedahay waa in Falastiin dowladeedu hadda la sameeyaa. marka taasna waa guul u soo yeetay shacabka maartay Falastiin hadiiba ay u hirgasho Ilaahay u hirgaliyo Ilaahay dowladaha siiyo dadkaas. daawadayaal barnaamijkeeni waa naga intaa idinkana u soo ducaaya Falastiin
xaalkeedu hadda meel fiican buu maraa xaalkeedu waa baraambar meel fiican buu taagay ilaahay ha uga sii dhammaystiro intaas uu sii duceeyey barnaamijkii waa naga intaa barnaamijkii ugu horreeyay ayuu maanta talaadaha aan kusoo qaadanay macluumaadka wararkii ugu waaweynaa wixii socday dunida fakar iyo aragti waxaa qabtaan soo qora barnaamijka sidaad u aragtaan sidoo kale haddaad nagu cusubtaa subscribe sar youtube-ka haddaad ku cusubtaa facebookana follow garay inta mar walba barnaamijka like garaysa share garaysana waa mahadsan yihiin inta kalena waxaan ka codsanaya inay like gareeyaan oo ay share gareeyaan barnaamijka si in badan oo naga mid ah barnaamijyadeena ay u gaaraan ugana faa'iidaystaan intaan mar kale kulmayno saacadaha soo socda iyo barnaamij kale nabadgelyo